anigoo intaan ka soo safray Boosaasan Hargeysa u soo socday marka dariiqa marka mareynaba wiil yar ayaa intuu meel naga soo baxay buu ul dheer sida qoriga yu noogu soo riday yani xabad kama dhacaynin laakiin sida qorigii ayuu noogu cabsiyay wiil yar oo 10 iyo 12 iyo 13 jira ani markuu soo tiray waan istuuray baabuurkii baan isku dhex tuuray toban macallin baa ila socotay igu qoseen war doctor waxa la yiri waa maxad fulinimada ninkan waa qori mahe marka waxaan ku iri waa gu iyo laba intuu gabankani gaari meel uu wax gumaadee ka gabada hoy baan dhahay waa gu iyo laba intuu gabankani gaari meel uu wax gumaadee ka gabada hoy yani ficlan wiilkan yarka wuxuu sugayaa waqti uu qori qaadi karo wax dilu sugayaa meesha ayaa gaarsiiyay waxa gaarsiiyay beedii iyo aabo iyo hooyo iyo geesin baabuur baan ku jira baabuurkan isku dhex tuuray marka meel yar kayn ahayd kaybu naga soo baxay qori ahaan buu u cabiray markaas uu saas soo yiri marka fakti arto waxa sidoo qori maya waa arkay laakiin waxaan rabay inaan tuso khatarta ay leedahay yani waa qori run ah maxaa jira wiilkan yar haduu haysan lahaana uu soo ridi lahaa moogtahay aniga marka isagoo soo riday baa madaxayga marka baabuurkan isku dhex tuuray marka macallimiinta igu qosashay saa daraadeed baan marka tudacaas meeshaas ka bilowday لكن طبعا بيئدي يجوجي دجالك أهلي جها يستلكي إنه دن أيام كسر قاطع سيد أدو أركتي رنهان وحي تلمامي سيدتك أو إسكان نقضي دجاج وحنا أو مقطع إن كمده أو بدن أي كبيرت الرواجي يدوعدي اللباحي وحوني جرا أي كبيرتي أو يكون ولا شتى يعادوا جيد لما تكها أي ولا شتى أو قدام بيس مركه هيلبكي إسعنايا وحي كجد وجه كلية دجاجة بدنا دجاج واللباحة وكلا هذا مثلا وحد لا مركب بعضه سو بهنين وحمد دلا أبدا سو بهنين وحمد دلا أيوه وحبو عني مركب درجو وساحن maalintu marka baahdo soo kaca ya markaas amar isiina ya markaas ogaar la raadsan laakiin dadkan iscunaya ee isdilaya iyagoon baahnayn bay dadka hilibkiisa cunayaan caruurteena marka fiir waxaan ku soo tarbeynay dilka maxay la guriga dhexdiisa sheekadu ka socotaa aabihiisu wuxuu dili jiray awoogiisu wuxuu dili jiray reer hebel baa lagu maaday ilmaha waxana loogu sheekeynayaa marka sheekada aad baan sheekooyinka u dhageysan jiray hadda 30 sano maxaa jira waxaan rabaa inaan dareemo sida dadku u fikirayaan marka ninado weyn oo mutacallima wuxuu iga sheekeynayay sida awowgi gees u ahaa uu ka sheekeynaya ilmahan marka sheekada dhageysanaya aan soo wado wuxuu mudili marka wuxuu yiri xaalad cunfu ku barnaamij marka wuxuu yiri awowgay ma cabsan jirin buu dhahay markuu dagaalka ku jiro marka wuxuu isoo dagaal ku jira oo dhiig qulqulayo oo ragii iswada gowracayo warmihii la isla dhacayo ayuu ninba wuxuu fiiriyay buu xiniyihiisu fiiriyay buu xiniyo markii la cabsado yani waxa weeye korbe aadaan way soo aruraan bini'aadamka Ilaahay uu sameeyay marka wuxuu xiniyo iska laalaada ayuu arkay buu markaas uu gabi u tiriyo geesinimadiisii marka ilmaha damqasho male meeshana laga sheekayna waa 10 ruux oo meyd ah ayuu ninkaas ka talaabsanaya saadaraad ilmaheena waxaan u sheegno waa waxa ay wax la mid ah saasa marka uu gabaygan oo kale runhaan uu ku yimid marka dugaagiina meesha ku soo dhamaaday waad aragtay waa meel ummadiina ay baabaaday iyagiina way baabeen iyagiina bahal ma aakhirka wada cunaa cadawgii yaa ku habsaday